madaxda maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa ka qayb galay caleemasaarka Chief Caaqil Axmed Caaqil Maxamuud Caaqil Cabdilaahi oo bedelay Chief Caaqilkii hore oo geeriyooday madasha lagu caleemasaarayay Chief Caaqilkan iyo aad loo soo agaasimay ay ka hadleen barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer maayir ku-xigeenka degmada Burco salaadiin iyo cuqaal kala duwan iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo ka sheekeeyay taariikhda faca weyn ee caaqilkani ku leeyahay dhaqanka iyo abtirsiinada uu ka awow tirsanayo caaqile ana kuwan iyagoo ka hadlaya marka hore waxaynu halkan ku caleemasaaraynaa ku soo dhaweynay Chief Caaqil Axmed Maxamuud Cabdilaahi jaamac sidaa la idin sheegay wuxuu ka mid yahay sanadada uqaalnimada dadkii ugu horeeyay buu ka mid yahay waa farxad weyn baa aniga gaar ahaan inta Chief Caaqilka waxaa leeyahay Chief Caaqilkii jiray noqo midna anfaco loo shaqeeyo noqo beelaha gaashaanbuur ee caaqilka dooratay caaqilada imika iyadoo la iska daba jiro reeraha qaarna 20 beelay saddex qolay isugu tagay caaqilka waxaan ku soo dhaweynayaa marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa golaha uqaasha Soomaaliland baan ku soo dhaweynayaa abtigay sidaas ku soo dhaweynaya caaqilkan caawaynu caleemasaarayno waxa loo baahan yahay duco iyo taageero waxaan dii sheegayaa ilaahay dawladda ha inoo barakeeyo ilaahay tajoogta ha inoo barakeeyo ilaahay tayma doonta ha inoo barakeeyo ilaahay ha ku waafajiyo dariiqa saxiixa ilaahay dariiqa saxiixa talada wanaagsan ilaahay ha ku waafajiyo farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka Chief Caaqilka ee soo jireenka ee abtirsaday runtii farxad weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galo madax dhaqameedka caawa halkan xafladiisa aynu fadhino ee Chief Caaqil Axmed Maxamuud kulli adiga ka maamul ahaan gobol ahaan gobolka waxa uu ah baarlamaan uqaasha baarlamaan kale ma laha barasaabka iyo barasaab ku-xigeenku waa uqaasha iyo Chief Caaqilada waxaan ku soo dhaweynaa marka hore Chief Caaqilka golaha ballaaran ee baarlamaanka ee gobolku leeyahay baan ku soo dhaweynaa Chief Caaqilka Chief Caaqil Axmed Maxamuud Cabdilaahi halkaasi ka hadlay ayaa ka codsaday dadweynuhu inay la shaqeeyaan ilaahayna ka bariyay inuu fududeeyo xilkan loo caleemasaaray ilaahay waxaan ka baryayaa madaxda ii ducaysay ilaahay waxaan ka baryayaa xilka la ii saaray inaan ka soo baxo ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dawladda la shaqeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inaan la shaqeeyo salaadiinta gabagabadii munaasabaddan ayaa ku soo dhamaatay farxad iyo raynrayn lagu soo bandhigay sida loogu qanacsan yahay hogaaminta Chief Caaqilka cusub oo lagu sifeeyay in hanan kara xilkan cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.